waxaan ahay ninkii 3 nin ee shabaabka gurigiisa ku qabtay 28 bishii Oktoobar ee soo weeraray hotel Naasa Hablotu. waa gartay bacdi waxaanu saaray madaxdii qaranka waxaanu ku balanay inaan ayaga ka warsugo kadibna waxa ii xigtay handadaad iyo cagajugleen guriga aan deganaa la igu yimid ilaa markii dambe ay xabadii igu bilaabatay istaafkeyguna iyagoo difaacaya baan anigu lafeeyay kala soo baxay. waa gartay marka saaka gurigaaga miyaa la soo weeraray? gurigayga la soo weeraray xabadaha iyo waxaan dhuusan qarto ay ka socday. waa ay marka cid soo weerartay waxay ahaayeen ciidamo guriga iyo ciidamo nabad sugida oo isku daran bay ahaayeen. markii gurigaaga ay soo weerarayeen ma kula hadleen mise waxaad ka warashay rasaas socota? maya goodis iyo hanjabaad baa baryahan bay igu socotay. goodiskaasi hanjabaadna macnaheedu waxaan u arkaa maxaa 3 shabaabka u qabatay inuu yahay macnaheedu waxaan ogeysiinayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ogeysiinayaa shacabka Soomaaliyeed in abaalgud la iga dhigay in weerar marna caruurteeda lagu xirxiro marna aniga weerar xagga lagu soo qaado taas marka ummadda Soomaaliyeed ayay u taalaa beesha caalamka ay u taalaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ay u taalaa ra'iisul wasaare ay u taalaa haddii abaalgudkaygu noqdo in shacabka lagu soo dhex weeraro. adiga ragga nabad sugidda iyo booliiska ee aad sheegayso markay gurigaaga yimaadeen wax hadal miyaa idin dhex maray? hadalna dhex maraya xabad baaba la igu bilaabay xabad baaba istaafkiga joojiyay xabad baana afooda la isku galiyay. waa gartay marka maxaa khasaaraha ka dhashay weerarkaas? labadaba waa jiraan. gartay intaas kadib maxaa dhacay? waxaa dhacay dee wixii anigu dee meesha dawladda halkan ka sugaynay abaal mariso in maaragtay abaal mariyo in maaragtay abaal mariyo iyo ama maaragtay ay abaalgud waxa la iga dhigay in marna caruurta la iga xirxiro marna la iga saaro. hadda maxaad isleedahay sababta saaka gurigaaga waa loo yimid inay ka dambayso ma adiga lagu doonayay mise guriga in laga wareego ayaa la rabay? waa la doonayay waana loogu talagalay arrinta iyada ah in aniga la igu soo weeraro dhibaatada la igu geysto. gartay hadda gurigaagii ma adiga gacanta ku hayo oo wali ku sugan iyo ciidanka ilaalada ku ahaa? anigu waa lafeeygi aan la baxay walaal lafeeygi baan la baxay. marka ciidankii nabad sugidda ahaa gurigaagii jooga ayaga soo weeraray iyagana galay xaafadii anigu waa iskaga soo baxay maada ka gaadhay ciidankaygi baan soo saaray marka intaas baan idin ogeysiinaya. marka ciidanku ma waxay ku sheegeen wax tuhuna oo ku aadan in adigu xiriir aad la leedahay nimankii weerarka? waxaad suuragal maahan waxa weeye maxaad u qabatay shabaab ujeedka la weerarayaan. sarkaal sare oo ka tirsan xoogga dalka ayaa tahay sida aad ii sheegayso marka taliska sare ee xoogga ma ogeysiisay arrintan? hadda ma joogaaba hadda ma dhex joogaa taliska guud. waa gartay marka maxay kuu sheegeen? maxaa la ii sheegi lahaa hadda ma reportkii bixinaya dhibaatada igu dhacday waxayna u taallaa ummadda Soomaaliyeed u taallaa shacabka u taallaa. marka wali caruurtaadii ma xiran yihiin? maya caruurteedii gurdoodii ku xiran yihiin oo ayaga baaba haystaba dhulkii oo dhan.